أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أدباني السلام يا مول بوجوكتين وحن الله وقت كسد كجرتين هايدين وعناضو إن وحاجة لا إنا محغير information إني قصيو أو حجرة بوست مقال عن صور دقي مر أنا سو جوري مقالة جلاسكو أنا كسو جوري لندن إن وحجرة ولا لبضن أو يجلس حريري بوستيجا أو qof walba oo rabo inuu information iga weydiiyo magaalada walaalo badan oo danaynaya inay Glasgow yimaadaan ama u soo guuraan run ahaantii 4 bilood ayaa hadda ii dhamaatay ama noo dhamaatay anaga intaan deganay magaalada way jiraan yani dad badan oo muddo badan halkan ku nool oo yani laga yaabo inay information badan oo buuxa ay hayaan ama ay iyagu waa dad muddo ku noolaa soo wax badan u soo jooga ama experience badan de aniga iga leh laakiin aanu maadaama 4 bilood joogo wixii aan la kulmay un baan inii sheegi karaa si aan ula qabsanay iyo xaaladooda say tahay hadda kamana dhigna in aniga hadii mesela aan meeshan hadii ay anfacday inay qof kale oo soo guran ay anfacayso dadku isku situation ma aha isku wadcina ma aha marka qofka iyo xaaladiisa ay ku xiran tahay marka uu meesha yimaado iyo sida ula qabsanayo aniga ahaan alxamdulillah rabbil caalamiin waxaan oran karaa aad iyo aad ayaan uga helay magaaladan aniga iyo familkayga caruurtayda runtii aad iyo aad ayaan ula dhacnay marar badan waxaan is idhaahdaa way fiicnaan lahayd haddii muddo ka hor aan iman lahaa meeshan laakiin imikaba alxamdulillah xilligii ilaahay qadari weeye waana is not too late marka waxyaabo fara badan baan anu ku jeclaaday magaalada waxyaabaha ugu horeeyay anu reasonka ugu horeeyaan oran kara London oo uga soo guuray is ciyaalka iyo ubadka because aniguna waan dareemi karaa waalid walba oo danaynaya inuu London ka soo baxo ama Glasgow yimaado ama magaalo kale ka baxsan London inuu tago waalid walba oo danaynaya waxa ku kalifayay waa ubadka because London anu saan u arkay aniga runtii inkastoo caruurtaydu ay Afrika iyagoo yar yar aan geeyay oo muddo badan runtii muddo badan aan oran karo wiilashayda waaweyn oo kale muddo 9 sano ah ay Afrika soo joogeen wadankii ay soo joogeen rag iyagoo Soomaaliya na yimid halkan oo af Soomaaligii ku hadlayo oo wax walba yani ku soo waaya arkay wadankii oo alxamdulillah rabbil caalamiin aan oran karo it was a good experience although aan jeclahay inaan mowduuca caruurta marka wadankii la geeyo aan jeclahay inaan videodo kale iniga soo sameeyo experience-kayga waxaan kala soo kulmay iyo waxyaabo aan rabo inaan dadka aan la wadaago aan la share garayo oo aan u soo arkay runtii markii wadankii la jooga wadankii marka la tago iyaduna waa wadci kale iyo story kale so waan iyada laftirkayga waan la share gareyn doonaa insha Allah hadii la yiraahdo عندي أنا كسر نقطة Glasgow محن كلا كلمة Glasgow وحن كلا كلمة جوي دكن جوي فرحة الحمد لله رب العالمين واحد مدة برجر يا عليسيو عندي ريمي جري مركان أنا لندن جوجي إني قدر القادمين الحمد لله رب العالمين ما قرن كرو حتى هردي أتسيحان سوا كدو أنت هردي أتسيحان جري وحن أقول كلام maybe because dhul oo pollution ku yar yahay waa meel jawgeeda inkastoo aniga weatherkayga liga cabsin jiray laakiin weatherkaygu ma aha weather xun waa run roob baa mar walba roobkuna aan waxaan oran karaa waa blessing alxamdulillah rabbil caalamiin dhulka ilaahay roobka ku manaystay ee pollutionka iyo wasakhda iyo wax walba uu ka maydhayo yani caafimaadkiisu fiican baan oran karaa UK waxyaabaha ay ku roon tahay waxa weeye inta yani roobku ku badan yahay halkana UK-da kale waa ka daran tahay oo waxa weeye mar walba roob baa inta ugu badan roob baa maalmo waxa jira joog dry yahay laakiin inta badan roob baa hadii uu dadku yahay qof yani yahay qof aan jeclayn roobka maybe ina dib ku noqoto laakiin aanu waan jeclahay roobka alxamdulillah rabbil caalamiin dhulkeeni waad aragtaan roobku marar siisana gaar ayuu daa hadii uu dii waayna waad aragtaan abaarta iyo ubaarka iyo jafaafka dhulka ka jira iyo yani waa dareemi karaysaa dadku yani inay dhibaato ay ka soo wajahdo roob la'aanta dhulkan laakiin xisaab ma leh looma xisaabin season ba ma leh ingiriisku roobkiisu season ma leh waa 4 season ba roob baa
marka waxaan oran karaa waa blessing alxamdulilah rabbil caalamiin. joogeedu ma xuma, joogi ku eriyay maaha anu markaan anu iska hadlayo alxamdulilah. barafkii la lahaa baraf baa da-aya, winterka waa qabow, London way ka qabowdahay, waa isku mid. wax barafa inta aan deganahay maalin baan arkay one day wuu da-ay, maalintiina the next day wax barafa dhulka ma oolin, waa roobkaa meydhay, isla markiiba roobkaa meydhay. wadarkeedu ma xuma, taas waa mid. maadaama badanaa dadku u daneeyaan caruurta, aan waxaan odhan karaa waxyaabahan aadka uga sii jeclaadana ay tahay waxaa kamid a safetyga. yacni ilmahaagii markuu baxo aanad ka walwaleyn. ilmahaaga markuu baxo dibadda London markay caruurtu baxaan walwal badan baa ku qabanaya as a waalid, because waan ognahay it's not a safe place, especially caruurta markay teenage yihiin, 10 jir markay dhaafaan, yacni ay bilaabaan secondary-ga ay galaan oo ilmuhu keligiis ka baxayo oo keligii soo noqon. ilmuhu markuu keligii baxo keligii soo noqonayo oo iskuulka dee keligood bay tagaan caruurta markay secondary-ga yihiin, waana keligoodna way ka yimaadaan. intaa walwal ayaa ku haynaya ilmahaaga, waxaad ka baqaysaa inuu yaanihii dhex galo dad aanan wanaagsaneyn, caruur aanan wanaagsaneyn, in laga tala qaado, in dhibaatooyin ay kasoo gaadho. mar walba farta ayaad wadnaha ku haynaysaa. halkan caruurta waa baxaan, cid kale walwashaay ma jirto. ilmo waxaad arkaysaa 8 jira 9 jira keligii iskuulka tegaya, aanan loo walwaleyn, aanan loo cabsanayn. markaa safetyga aad bay u fiican tahay, يعني 100% كله ما أها، لكن is not like سيدا لندن a lot safer, like aad بي uga safety uga fiicaya caruurta kama walwalaysid. caruurtu xaggan waa caruur wada reasonable, waa caruur wada sensible, waa caruur maasha Allah. ya caruurtan waxaan ka hadlayaa Soomaalida, halkan ku arkay waa caruur diinta ku wada xiran, waa caruur luqada yaqaana oo Soomaaliga wada yaqaana. ilmaha halkan ku dhashay waligii aanan ka bixin Soomaaligiisu sax yahay, ما شاء الله تبارك الرحمن اللهم بارك. caruurta halkan ku arkay London weligii kuma arkin. waa caruur masaajida ku wada xiran, kuwa teenage-ka miskiinka ku wada xiran inay tagayaan. waa caruur intaa khayrka muxuu haaye yani isxasuusinaysa, yani jimkooga sportka kale tagayaan iyo shaqadooda. hadda caruurta halkan iyagoo iskuul dhigtay wada shaqeeyaan weekendka, ama ilmuhu iskuul ha dhigto ama jaamacad ha dhigto, weekendkii kale u shaqaysanaya, jimkiisu tagay, yani dantiisa hawlihiisu ilmuhu ku mashquulsan, focused 100% weeyaan dhammaantood. wallahi alxamdulilah allahuma baarik maasha allah. aad baan ugu riyaaqay, aad baan ugu farxay. ilmahaagii markaa caruurtaasu la jaan qaadaya, caruurtaasu dhexgalaya, yacnihii kama welwalaysid. yacni caruur gaan ah ama caruur istaba ordaysa, caruur loo baqayo, no kumaan arkin halkan. marka intaas aad iyo aad bay uga fiican tahay London. a lot of parents oo raba oo arrinkaa danaynayana waa jiraan. marka taas anigu horta aad baan arrinkaasi u siiyey credit aad badan magaaladan maasha Allah. xagga waxbarashada noqoto, waxbarashadu systemkoogu waa ka duwan yahay. overall nolosha halkan UK magaca un bay ka yihiin, laakiin systemkoogu dhan waa ka duwan yahay. they got their own systems wax walba when it comes to NHS-ka, waxbarashada everything waa ka duwan yihiin. NHS-ku waa completely different department oo ka London ka duwan. waxbarashadu saas oo kale. iskuulka caruurta yaraan bay ku bilaabaan 5 jir ilmuhu markuu yahay year 1 weeyi, 15 16 waa dhameeyaan, 17 by the time 17 jaamacaday galaan. jaamacadu waa 4 sano weeyaan, waa free weeye, free of charge. even London haddaad kasoo gurto ilmahaaga halkan isagii oo dhamaynaya aad iskuulka aad keentid, jaamacadda free uu ku dhiganayaa. qof kasta oo UK citizen ah. dadku xoran jireen 3 sano 2 sano, no. ani waxaan istaa 2 wiil oo teenager oo A levelka dhiganayay. S6 waxa la yiraahdo secondary 6 oo year 13 u dhigma, A levelka second year u dhigma weeye. ilmuhu markaa jaamacadu galaya. and the good thing waxa weeyaan dhulkan tuition waad ka maarmaysaa, because macallimiintu iyaga waqti badan ku bixiya caruurta inay wax fahmaan. ilmuhu markuu system kale ka yimaado UK England waa system kale, iyaguna waa system kale, so waa different systems. waxa la dhigay waxa laga yaabaa inay waxyaabo kala duwan yihiin. ilmihii waxa yani waxa loo sameeyaa inuu catch up gareeyo wixii dhaafay. macallimiintu waa la fadhiisanayaan, waa caawinayaan, waqti badan ay ku bixinayaan. waxa la leeyahay subaxii 8 kaalay ama lunch time break kaalay, waxa kuwa adag oo dhan waa ka caawinayaan. yani the way they are so helpful, والله it's just amazing. ilmahaaga inaad tuushankiisa xataa uma baahnid. allahuma baarik. weliba waa dad friendly, dadka Scottish people ku dad nice people, wallahi way ka fiicanyiin intay doonaan dadkii. like waa dad friendly, waa dad furfuran, waa dad weji furan intooda badan.
of course cunsuriyiin way leeyihiin oo meel walba cunsurnimadu waa iska jirtaa laakiin wallahi waa dad wanaagsan oo qabow oo wadad lala noolaan karo wallahi waa dad overall ingiriisku waa dad lala noolaan karo wallahi Europe oo dhan marka la isku geeyo meel lagu noolaan karo aan waa yani ingiriiskan oran kara because waa dad ka horeeya dadka kale xagga bulshada isdhexgalkana aad u daneeyo oo qof walba yani culture-kiisa wuxuu aaminsan yahay u deynay oo soo dhaxgelinin oo qof walba xuquuqdiisa yani inuu iyo wuxuu aaminsan yahay inuu practice gareeyo dee uu ogol sometimes cunsurnimo waad la kulmaysaa laakiin ma badna wadankan haddaad rabto inaad cunsurnimo ka badbaadid ama systemka inaa lagugu abuusin haddaad rabtid waa inaad barato xuquuqda aad u leedahay iyo responsibility-gaaga labada haddaad kala taqaanid wadanka si fiican baad ugu noolaan kartaa haddaanad garanayn waxaa laga yaabaa in wixii la doono lagu sameeyo it depends on you aday ku xiran tahay qofkii ku xiran tahay marka iskuulada aad baa loo caawiyaa S6 waa secondary-ga iyo level-kay dhahaan S buu ka bilaabmaa kuwa primary-gana primary 1 2 3 saas xagga kale caafimaadkana way ka duwan yihiin marka jaamacaduna waa free oo waxa weyn jaamacadda ilmuhu markuu galo free way xataa haddii iminka aniga jaamacadda oo markay galayaan oo kale anaga imka dhawaan soo guna next year is free way marka wax lagu oranayo 2 sanaad jooga 3 sanaad joogisa aanu manaan arkin jaamacaduna sideedaba waa jaban tahayba isno like sidii I think waa 1500 sanadka dhan hadaa qofku hadii lacag ka noqoto qofku waa awoodi karaa oo iska bixin karaya marka alxamdulillah aan waxaan oran karaa meeshan is a way better and noloshii kale dabcan waxyaabo kale oo waxa jira iska yar oo for example inaad u baahan tahay mar walba inaad gaari haysatid maadaama aad magaaladu ayna xoogaa yar kala fog tahay is good inaad gaari haysatid because anagu London markaan Africa tagay baan gaarigiiska iibiyay so markaan soo noqday ma iibsan gaari because London there's a lot of things or parking restrictions badan baa jira oo gaari markaad wato waa rafaadaysaa xagga laakiin parkingkeedu waa easy and meel kasta gaariga iska dhiganaysaa waxa weeyaan isno maaha jaamkii iyo the parkingkeed lagu kadeednaa ma laha marka waanad u baahan tahay you must have because wadankan waxaan arkay dadku inay gaari wada wataan magaaladan gobolkan ama magaaladan aan deganahay subaxdii oo kale markaa ilmaha geenaya iskuulka ka ugu yar badana kaligiiba waxaa arkaysaa dariiq inaan kaligiiga socono sometimes horse magaalada maa laga guuray because dadku inta badan gawaarida ba isticmaalaan maadaama wadarkuna inta badan oo roob iska rainy yahay marka is good inaad mar walba dee inaad gaari haysid way fiican tahay اللهم صل على محمد عدي أنا وحكي لك تجينا إن شاء الله كذلك بكسر شيء جدونا لكن أنا overall ولا لها ضنينا يا مجالدة إني أسوق جوران حاجة وحبرشة وأني جالها اللي واحد جرتا تضرب حاجة هاوسينكا إن هاوسينكا لفتر كيسو ويكفوا ده لندن أو حتى جوريها إن برايفت كقفكم مركو كريسنا يا عدي أنتوا توضن كان مجالدة أنتوا تمادون كذا haddii aad intood shaqaysato guri karaysato guriga kiradiisu aad u jabantay for example qolka iyo fadhiga waa like around 500 pound qol iyo fadhi bareefada waa bareefada Londonna waa la ogyahay inta lagu kireeyo qol iyo fadhi is around 2,000 something ayuu hadda sii socdaa marka guryahana waa ka jaban yahay xataa isagoo bareefada uu ka jaban yahay aad buu ka jaban yahay in England especially London England kale aan ma garanayo laakiin London ma sheegay marka is very easy inaad guri karaysato hadhow toola xataa guri council inaad heshana waqti badan kuma qaadanayso it just like 6 months 1 year bay dadku ka helaan guri council inay helaan marka wax kasta walaa waa ka fududay London dukaanada masha Allah dukaano wada mega store oo wada waaweyn dukaan walba oo dukaanada waaweyn aan ku cuntada iyo dharka ka iibsano kullu waa wada dukaano masha Allah waa meesha waxa weeye in Primark oo kaleemka Primarka xaafad walba de wuxuu leeyahay shopping center ka mall weyn oo waxa dukaano walba ku yaalan buu leeyahay dukaanka midka Primark oo kale xaafadeeda ku yaal example wuxuu la mid yahay Primark Oxford ku yaalay yani sidoo uu weyn yahay dukaanada cuntaduna waa wada sida dukaan walba waa mega store marka waxa weyn wallahi ma sha Allah aanu meeshan aad baan uga helay wax kale information dheeraad ah dib baan igala soo wadaagi doona way igu dheeraad videoyada aad baan salaamay dhamaan salaam calaykum